quraan uu ka soo horjeedaa meesha minkum faliyo min meesha minkum faliyo kufr ilaaha dhahayo warkaas macadiya cid dilaysa meesha ma jirto af ku dhigla meesha kaba shaqeynayo dad islaameed oo Soomaali ah oo soo taagtaagan oo hooyo aaba dhaleen oo awlaad dhaleen oo nolol haysto inaad ka dhigtid dhiigood inuu yahay caday lagu cadcadeynayo kale aad tirahdid wax xadiis ay yiri ama aayada tiri sabtibul ma aqbalna ma wax kale ma ka sheekaysanaa xafid maya haddaad horta waa shayaan horta ku hadlo soo iska baxaya maya fi qolba qaacidu leeyahay bacda iska la mayga wax alla waxa rabtid sheeg waxba la dili karaa aqbal ma warkaas macadiya adaa mayga iska aniga waxba la dilaa horta ma ku oranba aniga ayaan marka aan leedahay aniga xadiiska ma aaminsan iyo waa aaminsanahay taa adiga fikradaada waaye laakiin aniga diinteeda horta fikir ma ahaba kitaab waxay rabaa aniga saa ma oran baa laakiin waxa waaye waxa dhahay sababta qofka loo dilay waxay tahay fitna laga baqaayo inuu fitnayo familigiisa rasuulkiisa ma taqaanaa ilaahay waa ka baqaanaa waa aqana ilaahay rasuulkiisa hadda taqaanid aqbal ma ahna ku yiri markii shanaada ku soo celinaa wax u daliishan kartid oo la aqbalayo meesha ma jirto qof hal dilo muqaddas waayo qofka bini'aadamka diintiisa muqaddas waayo wax loo dili karo ma jirto aniga qolkaan hadda maamulaya mogtahay aniga taasaan ku leeyahay haddii aad kala nagala sheekaysto nagula soco ma rabtid soo maahan liif quietly iska taaba buu iska bax ma cid kaa dhegaysanayso diinaad tiri qof bini'aadana hala dilo oo dhiiggiis hala xalaalayso ma jirto aqbal ama ha aqbalin please cabdi xafiid si kale mu sheekaysanaa dictatorship iyo qolaha warhaada waxaa la dilaa fiir dimuqraadiyad maaha waxaa la dilaa abulmugtaag waxaa la dilaa dimuqraadiyad ma aha ilaahay ma taqaanaa dad tiro badan oo Soomaaliya 82 qof oo Soomaaliya ku joogto 104 qof ayaa joogta waxaa la dilaa xafiid cid ka dhageysanaysa male daliisheedana cid ka dhageysanaysa male waxa aad soo akhrinaysid mar hore intaan soo laqnaa iska tufnaan diidnay aniga shakhsiyan waan diiday hadaa rabtid maygaaga ku soo celinaa wax kale abuu ka hadal mawduuca kor saaran ka hadal isla isku aqbalaa ka hadal sida hadda abaayilnimo ay u dhaliilaysay dadkan Soomaalida oo la joogno oo gabdhaha iyo wiilashan kala duwan u dhaliil xora u tahay laakiin waxaa la dilaa mamnuuc way platformkan sida aan loo ogolay waxa gudbo muqaddasaad aan loo ogolayn dad diigood in lagu xadgudbo adiga hadalaa dhahday ayaa aniga daba galay حديث عن كسرها حديث كرمنا كوعد دين ترين والله متقنا عبد الحفيظ يا ابو غير ان قاعد يسوس متقنا waxa inkirsantaa ma jirtaba maba jiraan ku yiri inkir waaba another level mugtaa waaba sheekadooba maba jiraan ku leeyahay azcum ma jiro ilaahay ma taqaana ma ka gudbi karnaa خلاص markaa si salaam saasay ku dhamaatay wallay maqlay horta lagu maqlayaa ku soo Abu Bakar gabadhaasi ayaan Axmed حديث كمان بدل دينه فاقتلوه ما يدفري كان هذا يدفرتي كان ما يدفري ما تدفري كرتو ولا تاجنتا إذا ولا تاجن بقى يا حديث كاسمه بجري ولا تاجنتا والله بالله dad kaasi banaanka in la keeno waa maartay waa aad bay maartay u qurxoonta in dadka ay arkaan maartay waxay u yihiin oo dhan maartay islaaman ay ku leedahay aniga muslim ay ku leedahay xadiiskaasna ma jiro hay qof imika sida ku hadlaya hadhow muxuu ku hadlay bal waa kaasi imika halka oo soo joogan message-yadan hanjabaad aniga waxa iga qaadmaysan orano Afrika jooga wallahi ana midigi qaadin billah haddaad waalataan baa waxba iga qaadin waxa doontaan sameeya aniga la waxaad mooysaa dadka aad waan jabisaan ay leedihiin haayay hanjabaad ka qaasan walibana sidaas waxaan samayn doonaa maalin walba baartiyan weydii bal horta marka hore weydii bal ma ayada diinta aqoon ay u leedahay waa qofka hadlaya waa kee ya qofka hadlaya waa kee cabdi cabdi waa farqiya amida naagta hadlays ma horta diinta aqoon ay u leedahay ayada mise ma waa ogolowo waa xadiiska may diidan tahay ma ayada quraanka ay diidan tahay maxay diidan tahay warkeeda may cadayso أحمد مالها topic معلم ما أنت بتلو كير طبعا يميت بان فيليا مركان إن شاء الله يعني أحمد وحياب بدن باكو دافع ولا مركان إن شاء الله اسكت جيسو عبد ما سنتهاي ولا لا هاي قبلني واحد حديث كذي دي
dee waxaan ka aaminsanahay walaalaha muslimiintaaban bal qof qof ugu weydiin doonaa waxaan kasoo bilaabay